qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo kulan ku yeeshay Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen guddoonka baarlamaanka Cali Gacal Casir kaasi oo horey looga soo gudbiyay mooshin kalsooni kala laabasho ah. Dooda mooshinka oo socotay 2 maalin ayaa kolkii dambe la geliyay cod waxaana 147 xildhibaan oo fadhigii maantay fadhisay ay gacantaag ugu codeeyeen gudoomiye Cali Gacal. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa ku dhawaaqaya natiijadii ka soo baxday kulankii xildhibaanada ay kalsoonida uga laabteen gudoomiye Casir. waxaan hadda leeyahay fadlan eedeymaha soo jeediseen gudoomiyaha lagu soo eedeeyay oo ay ka koobnaayeen dhowr qodob oo dastuuri ah aad ku soo eedeyseen inuu ku xadgudbay intaas qabto in gudoomiyaha mudane Cali Gacal Casir lagala laabto codka kalsoonida gacanta kore u taagan dajiya yaa ka aamusay waxa uu codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 147 waxa uu codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 146 hal cod oo ka midna waa diiday saas ayayna maaragtay ku tahay ansax oo ku waayay gudoomiyaha aad iyo aad ayuu maasantihiin waxaan rabaa inaan halkaan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka guddoon ahaan ayaa idila soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qaban lahaa iyo qaabkay u dhici lahayd annagaa idila soo socodsiino insha allahu tacaala. Cali Gacal Casir gudoomiyaha la sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay kalsoonida kala laabteen ayaa VOA u sheegay sidan. arrintaas waxaan u arkaa arrin la doonayo in Galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in fidnada la sii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqaynayaan wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayaga ah waana la arki doonaa isla markaasna ragga meesha joogay oo aniga isdayna rag doortayna ma aha waana dad shacab u badan runtii xildhibaano aan aqoonsanahay oo xildhibaanada Galmudug ahna meesha la joogay muddo 2 maalmooda waxa ay ka doodayeen mooshinkii laga keenay qodobadii lagugu soo eedeeyay maantana waxa dhacay codka cod u qaadista kalsooni kala laabashadaadii inkastoo codku gacantaag ahaa 147 xildhibaan baa fadhisay hal xildhibaan baa ka gaabsaday 146 kalena waxa ay sheegeen in kalsoonidii guddoonka baarlamaanka ay kala laabteen sida uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenkaagii koowaad ee baarlamaanka Galmudug arrinta sharciyan sharci ma ahan miyaad leedahay ma sharci ma ahan leeyahay laba arrimoodba sharci kuma aha waa mar heshiiskii Djibouti lagu soo heshiiyay waa la jibiyay waxaa ku tiilay dowlad goboleedka Galmudug madaxdeeda muddada ku meel gaarka ah ayaga shaqeynaya qodobkaas heshiiskii Djibouti lagu jibiyay midda kale waxayna sharci ku ahayn oo aan ku aqoonsan karin aniga ragga ayaga ah oo meesha lagu soo aruuriyay xildhibaano uma aqoonsan xildhibaanada Galmudugna ma aha xildhibaanada Galmudug sharciga ah 89 xildhibaan waaye wayna joogaan kumana ayna qayb gelin karto runtii ragga meesha joogana xildhibaanada 89 ka ah ayaa doortay anigana kuwaas ay doortay ayagaasaana xilka iga qaadi kara dad shacab oo meel lagu soo aruuriyo oo la doodsiinayo oo maaragtay loo sheegayo waxa la rabo inta loo sheego iska ogolaanayo oo gacmaha taagaya aniga xilna igama qaadi karaan imana dooran xildhibaanana uma aqoonsani sidaa darteed waxba kama jiraan way shalay ayay ahayd markii guddiga joogtada ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ay soo jeediyeen in la joojiyo mooshinada ka socda qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada ha yeeshee xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo jeedintii aqalka sare dhagaha ka furaystay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo.